kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 115aad ee barnaamijka tubta nabadda. toddobaadkan dhegaystayaal waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa sidii haweenka Soomaaliyeed ay uga qaybgeli lahaayeen isla markaana ay kaalin muhiim ah uga qaadan lahaayeen siyaasadda iyo talada dalka Soomaaliya sidoo kalena kor loogu qaadi lahaa kaalintooda. barnaamijka waxaa marti noogu ah agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeq Yuusuf iyo Sahro Cumar Maalin oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. waayay Fatix horta intaynaan bilaabin barnaamijka waxaan ogsoonahay in haweenku kaalintoodu ay tahay mid aad muhiim ugu ah nabadda iyo horumarinta dalka Soomaaliya isla markaana ay tahay kaalin aad muhiim u ah amaba u ah gudaha dalka Soomaaliyeed. haweenka Soomaaliyeed waxay dadaal dheeraad ah oo aan kala go' lahayn u galeen sidii ay qondo ugu yeelan lahaayeen amaba uga heli lahaayeen golaha baarlamaanka ee Soomaaliya gaar ahaan labada aqal ee baarlamaanka taasoo runtii ay ku guuleysteen inay kaalin muhiim ah ku yeeshaan. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa hadda haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin xubno gaaraya ilaa iyo 80 xildhibaan oo dhammaantoodba dumar. marka runtii kaalintoodu waxay tahay mid muhiim u ah markay timaado siyaasadda iyo talada iyo go'aanka gaarista masiirka dalka Soomaaliya. aan ku bilaabo barnaamijka Deeq Yuusuf oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. ugu horreyn ku soo dhawo barnaamijka. su'aasha ugu horreysay aan rabo inaan ku weydiino waxa ay tahay maxay yihiin qorshayaasha dawladda Soomaaliya ee ku aadan doorka haweenka ee siyaasadda Soomaaliya? su'aashaas waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah. ka dawlad ahaan horta waxaa naga go'an in haweenka Soomaaliyeed ay xuquuqdooda helaan. waxaa naga go'an in haweenka Soomaaliyeed ay matalaad siyaasadeed oo dhaba ay helaan. waxaa naga go'an in haweenka Soomaaliyeed ay heleen qondadii loogu talagalay xagga siyaasadda. marka dawladdu iyadoo mataqaanaa ka duuleysa xaqiiqadaas ayaa macnaha si aad la socoto geedi socod baa socda oo dib u eegis dastuurka lagu eegayo. geedi socodkaas dastuurka la eegayo ayaa gudihiisa waxaa naga go'an oo aanu mataqaanaa aanu gelinay qodobo ilaalinaya oo luuqad cad ku qoran ilaalinaya xuquuqda haweenka Soomaaliyeed iyo mataqaanaa qondadoodaba in si rasmi ah loo helo. halkaas dastuurkaasna wuu ku cadday insha Allah markuu noo soo dhamaystirmo. waxaa kaloo oo maaragtay ay ku caddahay muxuu ahaa matalaadan siyaasadeed iyo qondadoodaba in laga helo ayna ku jirtaa sharciga doorashooyinka oo la meelmariyay iyo sharciga maaragtay siyaasadda xisbiyada siyaasadeed oo ay bariyo dhaweyto la meelmariyay. su'aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxa ay tahay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Garowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland waxaa la soo doortay 66 mudane. waxaa ku jirta hal gabar oo kaliya. marka ma ka cabsi qabtaan in arrintaasi oo kale ay dhacdo marka la gaaro doorashooyinka kale ee maamul goboleedyada? si aad laga yaabo la socoto waxaa dhawaan maaragtay la soo doortay baarlamaan cusub Puntland iyadoo 66 xildhibaan ay golaha ay ku jiraan. 66daas hal gabar baa ku jirta. taasi waa ayaan darro. waxaa la filayayna ma aha runtii Puntland oo runtii ah muxuu ahaa dawladdii ugu horreysay ee ka hana qaada oo federaalka Soomaaliya ka hana qaada oo la yiraahdo waa aabihii iyo hooyadii federaalka Soomaaliya. baarlamaankan kan ka horreeyay waxay ahaayeen gabdhaha ku jira laba ahaayeen. hadda baarlamaankan cusubna waa hal. taas waxay ku tusay markii hore iyadoo cadaalad darro jirta bay haddana ay mataqaanaa ku ay xabadii labadiiba mid laga sii qaadaba. marka waa ayaan darro runtii cabsida way jirtaa. waxaana naga go'an in qoondada waxay abuuri kartaa dhaqanka noocaas oo kale in maaragtay qoondada haweenka la iska indhatiro oo ay saameyn ku yeelato xataa doorashooyinka soo socda insha Allah oo maamul goboleedyada kale aanu filanay inay ka dhacaan dhawaan in arrintaas oo kale inay dhacdo. marka si arrimahaas looga hortago waxaa naga go'an ka wasaarad ahaan inaanu xoojino wacyigelinta iyo inaan la sameyno mataqaanaa wada tashiyo badan inaan la sameyno gudiyada doorashooyinka heer gobol iyo ururada bulshada
iyo odayaasha dhaqanka heer maamul goboleed runtii si loo ilaaliyo qoondada haweenka. maxay yihiin shaqooyinka aad la qabataan ururada haweenka ee dalka ka jira si loo kobciyo ka qaybgalka dumarka ee dhanka siyaasadda? ururada haweenka Soomaaliyeed ee kala duwan ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto muxuu ahaa heer maamul goboleedba waxa weeye waa tiir adag oo u taagan mataqaanaa xoojinta muxuu ahaa sidii loo heli lahaa xuquuqda haweenka Soomaaliyeed iyo matalaad dhaba oo siyaasadeed. marka annagana ka wasaarad ahaan waxaa naga dhaxeeya wada shaqeyn aad iyo aad u xoogan. waxaan kaloo aan sameynaynaa insha allahu tacaala waxaan fariino wacyigelina u marsiin doonaa qeybaha kala duwan ee warbaahinta. waxaan kaloo ay naga go-an runtii oo muhiima in aan kulamo wacyigelina la qaadan doono odayaasha dhaqanka. aad buu u mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa Deeq Yuusuf oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. weli dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkeenii tubta nabadda waxaana inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee balaan markan yare dhegeysanno aragtida qaar ka mida dhegeystayaasheenna ee ku aadan ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo talada dalka Soomaaliya. bismillaah, magacaygu waa cabdulqaadir cabdo cali abubakar. haweenku xuquuqdooda ilaahayaa meel saare. islaamkana wuxuu qabaa naagta gurigeeda inay ku ekaato ilmaheeda tarbiyadeeda iyo waxeeda ay ka shaqayso. looguma talagelin in ay madax ay noqoto oo wasiir noqoto ama xafiis ay fadhiisato, looguma talagelin. qof walbaba ilaahay xuquuqu siiyey, xaqii ilaahay siiyey ha ku qanacsanaato, ilmaheedana ha korsato. wabillahi tawfiiq. waa Maryam Abshir Maxamed. haweenka xil way qaban karaan, xaqna way u leeyihiin inay xil qabtaan. marka ana waxaan dhihi lahaa haweenka mar walba hala sbood gareeyo, sababtoo ah gabar wax barato waa bulshada wax baratee. marka intaasaa dhihi lahaa. anigu hamigeygu wuu yahay inaa wadankayga wax u qabto oo maxaa la lahaa waana waxaa wax u baranayo mustaqbalkayga dambe. aad bay u mahadsan yihiin. kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo fikirkooda nala wadaagayay. bal iminkana aan u gudubno Sahro Cumar Maalin oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. Sahro, ugu horeyn waxaad nooga warantaa heerka ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda Soomaaliya. marka arinta oo haweenka waa ku dadaalay, waa gaarnay, inkastoo 100% fuulka aan la gaarin. inta hadda la soo xirootay oo aqalka federaal markii la yiraahdo golaha federaalka golaha shacabka iyo aqalka sare markii la yiraahdo senatoriska inta loogu jirto waa 80 haweena. 80 keenaas muxuu ahaayay waa ku wada jirnaa siyaasadii. hadda 2 sano aan joognaa, 2 sano waxba noo kordheen, waxna waa naga dhiman yihiin. aniga marka aan ka faaleeyo muxuu ahaayay soo gelitaankoodii commitment waxaan la galnay madash waxay ahayd nimanka madaxda ka ahaa markaas political agreement oo iyaga ay sameeyeen oo ay ku sameeyeen doorashada dadban. anaga haweenkan waxaan commitment uga dhignay maadaama aan madasha ka mid ahaa in bulshada reerka waxaan uga dhignay commitment inay heshiis bulshada la galaan oo ah in haweenka 100% ay qaataan iyo dhalinyarada. Sahro, maxay yihiin tallaabooyinka muhiimka u ah in la qaado si loo xaqiijiyo in kaalinta haweenka ay noqoto mid muuqata? si muuqato loo qabto waxay tahay hadda baan kuma soo bixin bilaa micno. waxaan ku soo baxnay culays badan oo juhdi badan oo international community ay saartay dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaan iyo iyadoo kaashanaysa ururada bulshada heedoo jireen. waxaa dhib ka dhaca waxay tahay ururada bulshada rayidka ah markii dawlad dhisanta waa baaba'an, markii fanki la sii jiray dawladda loo wareejiyaa. marka waxay aniga ila tahay in sida hore lagu soo noqdo hay'adaha internationalka ah siiba UNSOM hadda adiga UNSOM inay muxuu ahayd roolkeedii qaadato, sharci qaadato ahayd cadaadisaas badan lagu keeno. cadaadiska waxaa ka sokeeyo tababaradaasoo la baraayo maxaa siyaasi loo noqonaa, maxaa kaloo loo xiray iyo isku xirnaanka. arrinta noogu culus aniga waxay tahay dhaqanka iyo cilmiga diinka. dhaqanka waaba naga xiran yahay, maba geli karno. waxaan jeclaan lahayn in loo furo dhinac cilmiga la qaatay. cilmiga waxaa ka mid ah quraanka waa la wada bartay, tafsiirka waa la wada bartay,
xuquuqda waa la wada bartay kitaabka iyo sunnaha nabiga iyo ijmaaca kulli waa la wada bartay laakiin assessment special hadda dowladda guddi waxay qabtaa culamaa diinka ah oo sharciyeysnayn baarlamaanteer marka loo kaco laakiin dara jiro iyaga caawin hal gabar kuma jirto wixii yaroo gabar la keenana dhinacaas ay leeyihiin diinta lagu hor yimid odayaasha dhaqanka gabdho kuma jiraan iyaga dhaqankeeda ugu ciriirayaan marka arrimahaas si loo xidadaha looga siibo waa in gabdhaha la baraa marka gabdhaha laftigooda waxay ku leeyihiin kitaabka maa diidantahay horta kitaabka akhri wixii ku jiran ii sheeg odaga dhaqanka amahayno dhaqanka waa la bedeli karaa hadduunan maajgaraynaynin diinta islaamka haddaanu maajgaraynin la socodka haddii waciga la socdaa sahra ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd dowlad goboleedyada si loo dhowro qoondada haweenka ee siyaasadda maadaama qaarkood la filayo in doorasho ay ka dhacdo ahamiyadda aniga oo waxay tahay ururka aniga aan ka soo aasaasmay waa Somali Women Agenda movement waayo ururkaas waxaa gogoldhig u ahaa ururka iida ah konton urur camal waa dhameen oo yaryar ah iyo kuwa waaweyn iyo nagdooga isku jiro oon ka mid noqonaa taas waxay noo fududeysay inaan movement noqonaa marka baaqa aan diraa waxay tahay in Somali Women Agenda waa nooshahay weli hadda waxay noogu maqan yihiin oo shalayta ay ka jeedisay gabadha wakiilka nooga ah Puntland waxaan kaloo baaq u dirayaa isteediyada dhismaayo horta waxaan u hambalyeynayaa South West waa laba gabdhood ka dhinteen waxaa la jeclaan in lagu bedelo specialmente waxaan u hambalyeynayaa Cabdiqaadir speakerka sheekhuna oo diiday hadda gabdhaha lagu soo cesho Puntland waxaan ku cambaaraynayaa inay hal gabar kaliya ay ku soo dareen oo laakiin waxa waaye markii doorashadii hore aan joogay aniga waxaan ka dhaadhacsiinay oo hadda shalay gabadha baaq ku soo jeesa almeena wasiirada aan helno wasiirada kiiga ah ee gabdha aan helno agaasimayaasha inaan helno seedida soo socdo oo muxuu ahayd ama kuwa haddaba sida South West iyo Puntland waxay inay tixgelin weyn haweenka siiyaan dowladda waxay ka dhisantaa baarlamaanka haddii baarlamaanka haweenka lagu qadiyo shaqada ma sii soconaysa ama lagu yareeyo marka in waxaan kula talin lahaa kulligood baarlamaanada cusub oo soo bixi doonaan iyo dowladaha cusub oo soo bixi doonaan oo mustaqbalka ah inay haweenka boqolkiiba 60 ay meel iska dhigaan aad bay u mahadsan tahay taasina waxa ay ahayd xildhibaanad Sahro Cumar Maalin oo u warramaysay barnaamijka Tubta Nabadda markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka سعيد عبد الله محمد oo loo yaqaan Siciid Dani ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland. Siciid Dani ayaa wareegii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynaha maamulka Puntland oo ka dhacday magaalada Garowe waxa uu kaga adkaaday Asad Cusmaan Diyaano. Dani ayaa helay codadka 35 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland halka Asad uu ka helay 31 cod. waxa uu bedeli doonaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku haray wareegii koowaad ee doorashada isagoo oo helay kaliya 8 cod. Siciid Dani ayaa horay u noqday wasiirka qorsheynta Soomaaliya xilligii uu dalka madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud. kusimaha xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano UNSOM isla markaana ah ku-xigeenka wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya President Zenenga ayaa waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ee maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa isagoo ugu hambalyeeyay doorashada loo doortay inay noqdaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland. Mr. Zenenga ayaa sidoo kale waxa uu hambalyo diiran iyagana u diray guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland isagoo ku ammaanay sida wanaagsan ee ay u soo agaasimeen hanaanka doorashada oo uu sheegay inuu ahaa mid u qabsoomay si muuqata oo la arki karo isla markaana ku dhisan nabad iyo weliba xornimo iyo cadaalad. waa tahay dhegeystayaal markana anagoo soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka balan u bayrno dhinacii madadaalada barnaamijka waxaa maanta mar kale stuudiyaha nala fadhiya gabyaaga da-da yar ee caanka ah ee Soomaaliyeed Cali Deeq Maxamed Xaashi oo noo marin doona tix yar oo gabay ah oo kaga hadlayo horumarinta dalka Soomaaliya isla markaana ay u mudan yihiin inay ka qayb galaan talada iyo siyaasadda dalka Soomaaliya. sharaf weeye kaamila karaamada haweenkuyo way nala koreeyaan kalgacal iyo qadarin iyo koob dahaba mooyee ma gayaan kurbiya ciil
waa hooyo kaleeto aan 100 kun oo jeer abaalkeed la gudi karin kaynaanka nololeed kacaanadii Soomaalida kala guurka waayaha doorkay ka qaateen taariikhdu kama magelisee haddaan kow xusiyo labo kabtintii xorriyadeed kicintii gumaysiga haweenka karaan sare guusha wax uga keenaye kalsan xaawataako fallaar lagu kilkilay baa kow looga siiyo meel noogu qoran kore kala haadkii nagu dhacay raggu kaalintuu gabay dumarkaa u kacayo kasabka nolosha qoyskiyo isku keenka shacabkiyo korkay waajib saarteen ma qof baa inkiri karaa darajiya karaamiyo xilal iyo kuraasiyo koolkoolin badan bay kasab noogu leeyihin aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa abwaan cali deeq maxamed xaashi oo noo marinayay tixdaasi gabayga ah waxaana intaas noogu dhammaaday barnaamijka tubta nabadda oo ay mar kale halkan idinkala socodsiinayeen cali maxamed guutaale iyo anigoo ah fatxi maxamed axmed fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinkoo noogu soo hagaajin kara bartaan ku leenahay facebook ee tubta nabadda markana waxaad u diyaargarowdaan qaybtii u dambaysay ee ah qaybtii qadadka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijka ka dhegaysanaysaan